maanta ajendaheenu wuxuu ahaa doorashada iyo xilka saaran golaha wasiirada iyo xukuumaddaba waxaynu ognahay sida wasaaradii ay khuseynaysa inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyadduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culus kuwii hore 2 jeer oo ay tahay 2 isku sidkan oo meeshii sanduuqa u yeelay 2 sanduuq la geeyey in kharashkii iyo ciidamadii security-ga iyo maamulkii ay laabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego waxaa la hawlgeliyey 11,000 oo askari oo ciidan oo sarkaal iyo askari ah si 2,800 oo goobood nabadooda loo sugo intaa waxaa dheer ciidamadii kale oo heegan ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray yacni waa qorshe aad iyo aad inoogu culus u lahaa wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxa leeyahay logistics looga baahnaa iyo miisaaniyad commissionka iyo howlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ciidamada u dheer tahay intaa in ka badan 2 jeer oo 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood goob kasta 2,800 oo goobood mid walba waxa tagaya 11 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobilize gareeyo dhaqaajiyo وإلى مهدي قرنهان إنه هوشاس إلوه هرقشي وما أنت ديارك فيه وحينتها نور راعية دورشوينكو هب يا شرعي أياق حيث لو قراي شغالها دولته هدو عيدا يهي هدو شغالة دولته سياسته وكرهبيه وشغاله واضح شغالة قرن هو وضاه